maanta waxaana laga hadlay qodobo kala duwan oo ugu weynaa hirgelinta canshuuraha bariga si dakhliga dalka soo gala wax badan loogu soo kordhiyo shirka oo ay wasiirada badankooda xaadar ku ahaayeen ayaa waxaa shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed golaha wasiirada ayaa inta aysan ansixin ka hor dood dheer ka yeeshay sharciga hirgelinta canshuuraha bariga oo ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed ayaa warfadiyeenada si kooban ugu sharaxay in maanta golaha wasiirada doodooda kadib ay meel mariyeen sharciga hirgelinta canshuuraha bariga Soomaaliya ra'iisul wasaare Cabdiweli ayaa xusay in ahmiyad weyn ay siiyeen dhameystirka dakhli ururinta dalka si dawladda ay u gudato waajibaadka ka saaran sugidda amniga dhismaha dalka iyo adeega dawliga ee xukuumadda lagama maarmaan ay tahay hirgelinta canshuuraha bariga dalka waxa aan ka soo baxnay shirkii golaha wasiirada oo xubnaha golaha wasiirada isugu yimaadeen oo caadiga ahaa ahmiyadda maanta inuu ka hadalnay waxa ugu weyneyd dhamaystirka iyo dardargelinta dakhli ururinta sida la socotaan xukuumadda waxaa saaran howlo lixaad leh oo aad u ballaaran nabadgelyada inay sugto in hay-adihii ay shaqeeyaan waxaasoo dhanna waxaa lagu wadayaa in la helo dakhli marka dalkeenna dakhli badan baa laga ururin karaa waana isku fillaan karaa waxaan aad uga hadalnay markaas sidii dakhligaas loo waxayn lahaa wixii tafaasiila kulleyba wasaaradda maaliyadda ayaa bixin doonta laakiin waxaynu go'aansannay in la hirgeliyo canshuuraha biriga oo intii muddo ah ka maqnaa canshuuraha birigana ahmiyad weyn iyo qayb weyn ayay kaga jiraan dakhliga dawladda marka taas ayaa la ansixiyey maantayto laakiin hufidda iyo hagaajinta dakhliga iyo kharashka waxay ka mid tahay mudnaanaha weyn ee xukuumaddan ay ka shaqayn doonto si wax ku oolnimada dawladdeenna iyo waxtarnimada hay-aadkeenna ay u noqdaan mid sare u kacda oo dhammaystiran waa mahadsan hirgelinta canshuuraha bariga dalka ayaa ah mid lagu saleynayo dakhliga dalkeena si loo kordhiyo iyadoo looga faa'iideysan doono howlaha dawladda ay fulin doonto waana canshuur ururin toosa iyo mid dadban taasi oo ku waajib yeeli doonta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee howlaha kala duwan haysta in ay bixiyaan canshuuraha bariga